Nambarka labaatanaad Petronas Towers Kuala Lumpur $1.16 bilyan ayay ahayd wax ku baxay dhismaha labada daar ee mataanaha ah ee caasimadda Malaysia. Dhismayaashan dhaadheer oo dhererkoodu yahay 452 mitir ayaa la dhameeyay sanadkii 1998 waxaana dhistay shirkadda shidaalka ee Petronas. Nambarka 19aad Burj Khalifa Dubai dhismaha ah kan ugu dheer adduunka ayaa kor u kacay ilaa $1.5 bilyan inkastoo dhererkeedu yahay 828 mitir. Shaqada dhismuhu waxay qaadatay oo keliya 6 sano. Nambarka 18aad Garoonka Yankee ee magaalada New York Garoonka baseball ee New York Yankees waa goobta ugu qaalisan ciyaaraha adduunka waxaana kor u kacay $1.5 bilyan. Garoonkii asalka ahaa waxaa la dhisay 1923 waxaana la dumiyay 2010. Garoonka cusub ayaa markaas laga dhisay agagaarka 3 sano ay qaadatay in la dhammaystiro dhismaha. Nambarka 17aad Wembley Stadium London kharashaadka dhismaha ayaa sidoo kale wadar ahaan gaaraya $1.5 bilyan sida garoonka Yagni garoonkii ugu horeeyay ee Wembley waxaa lagu bedelay garoon cusub iyada oo leh 90,000 oo kursi ah iyo saqafyo dib u celinayo. Waa garoonada daboolan ee ugu weyn adduunka. Nambarka 16aad dhismaha ICB ee Frankfurt dhismaha cusub ee Bangiga Dhexe ee Yurub ee Frankfurt wuxuu ka kooban yahay 2,300 oo xafiis. Dhismuhu wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood: suuqii hore ee jumlada iyo mandaaradda waqooyi iyo koonfurta. Waxay qaadatay 4 sano oo dhismo ah. Qiimuhu wuxuu ahaa $1.57 bilyan.